gacmaha dhamaan iyagay wada leeyihiin diintay isku gargaarsadaan gabdhood bay isu yihiin youtube-adu gaar bay isu leeyihiin guddoon wacan baa dhex yaal kalgacalaan gaboobiyo guddooba salaam baxnimo gacmuhu ay xaaskiis Elvis inay isfureen caawadaan waa hada war oo degdeg ah oo waxa maqli jirtaan idinka xataa dhinac yar ka qaldan kan waa sax sheekh badbaada xaaskiisa wuu furay muxuu u furay sababta u furay maxay tahay sababta u furay waxay tahay inuu ku maqlay maxaa dhahay inay Elvis ilmo kala leedahay oo ilmahaas ay u joogaan Soomaaliya markuu sheekh badbaada maqlana hatta xaaskiisa wuxuu waa iga qarisay feer yaaraati inta kala taal xusul oo hore u galay wuu garaacay wuu furay sidoo kale uu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحناد السلام يا أصحاب تكحرن كأنك فردوس تساني وحن لا يا أصحاب تحسب سود وذات بو مهسنتهين أصحاب تهرنا وحن لا يودكم مهسنتي دا وشدينا يسبسكرايب هذا السيسان أصحاب تصوص عت اللي فتقول عن كعصنا يا هالمامن مركع دعوتينا سمايسيد أو دي صارت سبسكرايب لايك تنوى مهم maxaan ka hadli doonaa caawa barnaamij kale iyo muuqaal cusub oo kale insha Allah biidmillah waxaan arkay hal shay waxaan ka hadli doonaa waxa weeye hal barnaamij caawa barnaamijkaas oo ah waxa nagula jira YouTube-ka hal sheekh hal baan lahayn sheekhyada YouTube-ka nagula jirta runtii reeraha wanaagsan ee xaasaska waa sheekh badbaado iyo Elvis sheekh badbaado iyo Elvis baa la soo weeraray يا كأمسيه هل شيخ أو كقولة ترى يوتيوب كا أو وحي حنكا قبل تري أو وحي وناكسن كفر تري أو الله صوّر رأي ولا له يا كأمسيه وحن أركي أصدق حيل باتن ساعات كخر أيام وحن داودي برنامج كبر سوق الشيء مركي ما حيجو صار دعي أنا وحن نسكتش على هرتي مركي أنا أنت حيتها مركي أنا يوتيوب ككتيرين dhammaan hablaha YouTube-ka oo dhan iyo lamaanayaasha qaar badan waxaan u saari jiray subscribe-ka waxaan u saari jiray xuha in gambaleelkana waan taaban jiray marka wixii wax wanaagsan waxaan isoo jiray hablaha Soomaaliyeed mar walba waxay u baahan yihiin dhiirigelin waxay u baahan yihiin in barnaamijyadooda la daawado dabadeetna gambaleelkan ku dhufan jiray dabadeetna markii gambaleelkii u baa ii soo dhacay war degdega waaba ku dhuftay inantii war degdega iyadoo la war degdega marka saanina warka degdega laftiga ku dhufo madaxweynayaashii baa mid dhintay mise mid baa safray waaba ku dhuftay intaasina kaftana ha ahaato waaba ku dhuftayba waxay ku leedahay sheekh badbaado oo gabadhiisii furay aniga oo yaaban oo la bish a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim maxaa reerkiinii cusbaa ee wanaagsanaa qaatay shaytaanka soo dhaxgalay waa maxay oo aan ka fikirayo leeyahay bismillaah oo show YouTube-ka wajinba farfadhiya oo aan yaabanahay ayaa 3 minutes 3 saacadood markii laga soo wareegay 3 saacadood markii laga soo wareegay ayaa waxaan arkayba show sheekh badbaado xaajiyadiis waxay ku maqnayd safar safarkaas way soo laabatay reerkii oo aan jiniyo balaayatoona dhex joogin baan daawaday waan yaabay waxaan gabadha weyn ee war degdega ee ragga waaweyn soo qaadatay sooraan iyo jawaana war degdega ee ragga soo lugoysay walaalay maxay reerka ku aragtay waxa igaga sii darnayd waxay lahayd waxa isfuray in badbaadiye Elvis markaas waxa insha Allah warkeeda ka hor dhici mayno video waynu ku soo qaadan doonaa iyadoo oo hadlaysa ayaan video-ga idin tusi doonaa marka Kawsar baa la yiraahdaa gabadhaas walaalay waxa aan leeyahay maxaad reerihii hore ee burburay ayaynu ka ilmeynaynaa reerka kaliya ta YouTube-ka inagula jira ee tusaalaha fiican xitaa diinta ku dheehan tahay inoo ah maxaad u weerartay mid labaad kale warka aan la hubin inuu aayad dhan oo quraan ka hadashay maanad ogeyn hadii baa la yiri qof idin sheego war iska xaqiijiya fatabayanu cadeeya warkaas marka hadii xitaa lagu sheegay warka maad adigu naga soo baandhaysid waxaana soo baandhaynoo shaandhay bad meesha noola timi maanad gabadh weyn xishoonaysa ahayn bismillaahir rahmaanir rahiim naamaanad xishoonaynan wax isku falaynin
na walaale gabadh weyn baa tahay waxaad soo shaandhaysay ood naga soo miirtay oo aad baandhaysay mid YouTube kala tibaadi midda labaad reer la furay danahaaga kalaaba ka weyne mid naga xishood nagamaad xishoonin oo xitaa sheekh badbaado kamaad xishoon oo maanad ka baqanaynin wajigu waa baasaboora inaad kulantaan haddii la noolaado na walaale maanad xishoonin Kawsare maxaad reerka midda labaad reerku maxay kaa cuneen tolo ma inama waaweyn bay leeyihiin oo inamadii bay qaar ayaa boos ku saaray mise blog walaala sheekhaas sheekh badbaado iyo Ilfis waa labada culimo ee kaliya ta YouTube-ka ku dhex jira ee wixii qaldan qabta ee wixii wanaagsan ka hadla ee waxaan ku ma sha Allah tabaarakallah laba shakhsi oo aan aad u jecelahay oo aanan qabiil u jecelayn oo aanan qolo u jeclaynin oo aan Ilaahay darti u jecelay weeye ka daciyaarta walaalaha hadaana doonaynin inaad timaha isu qabsano ka dareera ciyaarta ana xaga culimada la igama maro ma garatay marka wallahi sheekh badbaado waxaan leeyahay waxa YouTube-ka laydiin soo dhigay horta waa ku mahadsantihiin aad baan u fiican tihiin waayo haddii mar walba wixii lamaanayaasha wixii la yidhaahdaba hadday ka soo jawaabaan oo ay soo boodaan waxa ka dhimanaysa xigmadda midda labaad qofka ku caaya ama ku dhaleeceeya hal wax baabaad kaga badinaysa ana qofka aanan doonaynin inaan u jawaabo markuu wax igu yiraahdo ama wax qaldan oo igu yiraahdo waxaan idhaahdaa maxaad ka hadlaysaa kuma fahmin maxaad ka hadlaysaa kuma baan fahmin marka jawaabtaad idinku bixiseen waxay ahayd wax wanaagsan oo ahayd maxaad ka hadlaysaan kuma baan fahmin ayaad siiseen marka waxaan ku leeyahay Kawsare waxa aad sheegtay waa been horta marka koobaad beenna irsiq kuma noqonayso beeni irsaaqad kuma noqonayso irsiq ka weyn baa jira oo kale waxyaabo kale ayaa jira oo aad run oo aad sheegi karto waxyaabo badan oo aad ka hadli karto wax wanaagsan oo aad ka soo sheekayn karto sheekooyin xikmad leh baa jira waxyaabo kale markaad meel wanaagsan irsiq ka raadiso Ilaahay wuu ka siinaya laakiin hadaad meel xun irsiq ka raadiso waa lagu imtixaanaya waana lagu fidmaynaya marka waxaan ku leeyahay reero isku faraxsan oo qoysasa oo dhisan oo dhaqan oo awlaadiyo waxaan ku wax walba isu dhalay oo ma sha Allah tabaarakallah aan anigu jecelahay inaan ku daydo oo aan horumarkay gaadheen aan gaadho oo aan heegsado runtii qofkaaga wanaagsan waa la ilaashada qofkaaga wanaagsan waa la dhowrta qofkaaga wanaagsan waa la ixtiraama reeraha dhisan masayrkuna shay masayr lagu ogol yahay iyo masayr aan lagu ogolayn baa jira masayrka lagu ogol yahay waxa weeyaan matalan reer wanaagsan nin iyo gabadh isqabo si qurux badan isu qaba ayaad ku masayraysaa shaytaankaad ka naaray waxaad leedahay a'uudu billahi min shaytaan ilaahu yogana u siyaadi sidaanay ishaada qumayada ah ku jirta reerkii u galin ila qof kastaba shaytaan baa kullu bahane marka wax wanaagsan anigu markaan arko waxaan idhahdaa ma sha Allah tabaarakallah maba ilaawoba ilaahu baan idhahdaa iyadana siisay u barakee anagana nasi ayaan idhahdaa markaad aragto reer wanaagsan ama qoys wanaagsan ama family qurux badan waxaad tiraahdaa ma sha Allah tabaarakallah ilaahu iyagana siisay anagana sidaas oo kale maxabana dhaxdhig midda labaad waa inaad wixii wanaagsan walaasha kaga dayataa waa masayrka la ogol yahay ee xalaash ah laakiin masayr markaad aragto walaasha oo horumar gaadhay markaad aragto walaalka oo horumar gaadhay markaad aragto lamaanayaal guri ah oo horumar gaadhay ha ku masayrin oo ha ka xanaaqin oo ha ceebayn oo ha fadeexadayn oo YouTube-yada iyo meelaha u istaaginay waxaad tiraahdaa ma sha Allah tabaarakallah ku hambaliye shaydaanka ka naar waxaan ku yidhiyay waxaad tiraahdaa hore u socda wixii wanaagsan ugu hambaliye marka waxaan ku leeyahay Kawsare horta reerka waad ku gaftay waliba waxaad meel baad kaga dhacday barnaamijka waxaan soo saari doonaa fiidiyogeeda inta yara gaaban insha Allah shaashadan soo dhigi doonaa waxaad xitaa ku gaftay oo aad tiri intuu laad ku dhuftay gurigii aad kaga saartay laadka xagaad ku ogay markaas waxa ku leedahay intuu laad ku dhufto gurigii kaga saaray ayuu warqadeedina siiyay furay deetana bal waad ila arki doontaan ila eega oo waxaad ila eegtaan hadalladeedii wixii kamid ahaa bal inaan anigu been ka dhigayo inay tiri
واتا وركيد واتا waxay ku leedahay intuu dabadeetna uu furay markuu furay ayaaba wuxuu markii uu yiri maxaa dhacayna waxay u sheegtay Elvis caruur joogta Soomaaliya waa beenti oo cad oo aan kaba loo galin oo aan shaar loo xirin oo aan surwaal loo galinin oo aan leerka xitaa laga baqtin ilaa waxa leerka loo baqtista ama shaar ba loo soo galiyaa ama toob ba loo soo xiraa ama maba loo soo hagooginba maba loo soo hagoogin watiyo qayaxan a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim naka wasalam xaq wala reerka kugu diray marka waxaan leeyahay ha u joojinina dadka iska fiisraadiska ah ee aan xikmad kale iyo xaal kale na garanaynin waxa la yiri xikmad baa waxay ahayd nin daad qaatay xumbo cuskay nin daad qaatay xumbo cuskay xumbada wad garanaysaan awood ay leedahay ma jirto marka qofka aan awood lahayn ayaa aha marka wuxuu gabay aan aad u jecelahay oo dadka dhaleeceeya iyo cayda iyo waxa soo Cabdilaahi Xasan Cabdilaahi leeyon mar walba soo qaato ayaa wuxuu naftiisa qofkan xishmeyn damiirkiisuna xishoon ayaa aadmiga xagto xumaantoodu wadwada hadaad aragtaan xinlow xajiin noolaha marsho ceebaha xaashiya ku qora xaqiiqtii uu buka xiskiisa dhalii jirtiyo kalsooni ka xoog jabto xalkeedii baaraya naftii isxaq dhowraysa wuxuu buuxiiriya marka waa kaas waxaan leeyahay asxaabta aad baa u mahadsantihiin like share iyo comment ku waa xaqiina waxaan idinkaga tagayaa is arag maqal dambe ama fi amaan illah assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala